qofka kula nool waa inuu ku garab istaagaa, waa inuu xanuunka kula qaybsadaa. ma aha inaad baagaada qaadatid guriga hooyada aad la aadid wallacaada iyo matagaada iyo xanuunkaada halkaa la jiiftid. ma aha, waa inaad qofkan bili-aadanka aada la nooshahay ee cunugan ilaahayga waaxidku weynaa madaxiina iyo madaxiisa uu ku imaaday adduunkan oo calooshaada ku galay, waa inaad nolosha sheergaraysaan oo ku garab istaago xanuunka kula qaybsado. عليكم ورحمة الله وبركاته. والله جواد السلامي وولاشي نجم MBR هالك تقدامنا سنة MBR قروح دبر أنا جو هالكاسي قووجي الدون كأيها برشاك وين بس واحد تبشر على فريا أنا وسيسي حنايو ودالن مدح آدي حنونايو أيا وحن أركي قبر ولاشي كومنت أي صورتي اللي هاي نجمو أبايو واسيد ودخسيها بدن وين الشباب كاهلا وماركتاي محاربة تلا دق أيا كهربا واسيحاني وايي anigoo daalo madax xanuuna waxa yiri no you have to inaad walaasha maaragtay waxay ku soo weydiisatay oo ofisid because sidooda banaanbo talada iyo dhiirigelinta waa geesinimo. waxa laga helaa geesinimo markaad la joogtid qof dhiiran ku dhiirigeliyo ku yiraahdo soco waad sameyn kartaa waad qaban kartaa ku yiraahdo markaad la joogtid iyo markaad la joogto qof qalbiga ka jibinaya waxaan ma sameyn kartid waxaan ma yeeli kartid waxaan ma qaban kartid isku mid ma aha totally. midda labaad markaad jimicsi sameynaysa ama hool qabanaysa ama wax sameynaysa markaad naftaada ku leedahay oo maasha Allah waa sameyn kartaa waa yeeli kartaa ha give up gareenin maaragtay waad sameyn kartaa ha ka qalbi jabin waxaan waa yeeli kartaa markaad naftaada ku leedahay adigu isla hadlaysid oo cod dheer aad ku hadlaysid markay niyadaada ku leedahay oo waxaan ma sameyn kartid waxaan ma yeeli kartid waa daalan tahay bari waad sameynaysaa bari dambaad sameynaysaa totally waa different. mar walba marka dhiirigelinta waa geesinimo markaad adigu naftaada dhiirigelinaysid ama markaad qof kale ka haysatid dhiirigelin. sidaas la aljigeed waxaan iri gabadhaasi adiga iyo asxaabtaada dhiirigelin aad dhiirigelisiin waxaa laga yaabaa maanta inay maaragtahay in wax badan u qabato. ha ka seexanin marka gabadhan walaasha waa inaad maaragtay ugu dhaqsiya badan ka jawaabtid. sidaa la aljigeed ayaan videoga usoo duubay insha Allah gabadhan walaasheeda intaana la talinin ka hore laba qodob waxaan rabaa inaan dhaho gabdhaha Soomaali weyn oo dhan meel kasta adduunka ka joogaan ee videogan maartay to Allah Soomaalida kala taliyo videogan u share garay gabadha kale. qodobka u horeeyo aad ku muhiimsan waxaa waaye inaad fahantaan guurka inuu yahay nolol labada qof ay isku fahmeen inay wada noolaadaan oo wax isku darsadaan oo hadduu ilaahay waaxidku weynaa awlaad dhaxdooda ka dhaliyana inay wada korsadaan xanuunka la isla qaybsado dhibka la isla qaybsado murugada la isla qaybsado farxadda la isla qaybsado xanuunka la isla qaybsado inuu yahay horta koow inaad ogaataan. labo gurigan markuu dhisan yahay ma aha gabadha kaligeed inay tahay dameer raran. markay fiyowdahana waa ready markay xanuunsan tahayna dadkeedii iyo helkeedii ku cararaysaa markay fiyowdahana qofkan bay u rarantay sida dameerkii. ma aha nolosha saas. kaad ilaahayga waaxidku inaa calooshaada baby ilaahay geliyo lagu yiraahdo you pregnant positive pregnant tahay markii lagu yiraahdo dhakhtarku ku yiraahdo ama aad adigu iska baartid sawjkaaga ma aha qofka waxa lagu ilaahay uu ku abuuray cunuga waa adiga qofka xanuunka dareema waa adiga qofka labalabada dareema waa adiga qofka rafaadsan waa adiga qofka maartay jirkiisi gudihiisi ilaahay ku abuuray cunug waa adiga. maxaa lagaaga baahan yahay marka qofka kula nool waa inuu ku garab istaagaa waa inuu xanuunka kula qaybsadaa. ma aha inaad baagaada qaadatid guriga hooyada aad la aadid wallacaada iyo matagaada iyo xanuunkaada halkaa la jiiftid. ma aha, waa inaad qofkan bili-aadanka aada la nooshahay ee cunugan ilaahayga waaxidku weynaa madaxiina iyo madaxiisa uu ku imaaday adduunkan oo calooshaada ku galay waa inaad nolosha sheergaraysaan oo ku garab istaago xanuunka kula qaybsado. markaad shalay fiyoweed oo caafimaadka qabtay gurigiisa hagaajinaysay weelasha dhaqaysay cuntada karinaysay gogasha u hagaajinaysay dhalada cadarka isku jibinayso saas u socotay habiyo kugu ahaa nolosha farxadda lahayd qaybsanayseen. why not markuu xanuunka imaaday ina la qaybsado loo diidan yahay wala xanuunkaas oo xanuun nimco ku imaaday xanuunkaas oo ilaahay ka soo isaga madaxiisa uu ku imaaday iyo adiga madaxaaga why maxaa diiday totally horta waxaad iska xirtaan markaad walaacdaan baagan aad la ordaysaa no hooyada aabaha umaada walacin
qofkan adu walacday waa inuu ku ogaadaa waa inuu daawadaada ogaadaa waa inuu caafimaadkaada ka barhayaa waa inaa markaa matagaada sii aruuriyaa waa inaa maaragtay markaad cajisan tahay cajiskaada ogyahay waa inaa maaragtay masaaj lagu sameeyaa waa ina lugaha lagu rareexaa markaad xaamilato dhaqaaq la-dahay waa ina maaragtay lagula socdo marxaladaada step by step lagula socdo maaha inaad guriga hooyada aad baag ma aha hadduusan intaa ku sameynaynin ninka you don't need inaad mirahan adduunka kusoo daadisid qof markii horeba cunugii caloosha ku jirayba aan ka taxadaraynin adigiiba kaa taxadaraynin cunugiiba ka taxadaraynin waay aad maalin walba sariirta usaalada u saaran tahay waay yaad u dhalaysaa yaadna ka dhalaysaa yaad u dhalaysaa qofkaad u dhalaysaba hadduusan bareedi u ahayn inuu maaragtay nimcadu ilaahay keenay inuu maaragtay kula qaybsado ma aha gabadha Soomaaliyeed kaligeeda iska dhasho kaligeeda iska walacdo meesha ku walacda laba ogo meesha ku dhashay laba ogo meel ku foolatay laba ogo problemka gabdhaha Soomaalida kaligooda madaxa saartaan no intaada guursanin gabarey biirooga dug soo gaar kala hadal habeenkan baby caloosheeda kala you have to take care for me wayna dhahdid waynaad iga taxadartid waynaad caafimaadkeeda ka shaqaysid waynaad maaragtay you know ma aha inaad baag qaadatidood la sii oradid qofkan hadduusan babygaas caloosha galay uusan kugu teegaraynaynin uusan kula dareemaynin ee markaa xanuunsan tahay dhareerka kaa daadanaya dhareerka kaa tirtiraynin markaa ma tegaysid weelka mataqa kuusoo qabanaynin mataqa kaa aruurinaynin ku caabinaynin ku garab istaagnayn sujuudda maaragtay kaa shuminaynin ilaahay ha ku caafiyo kulahayn kuu dareemaynin maalintaa foolanaysa dhaxda kuu xiranaynin hadduusan sooxan murugoonayo kula oynaynin markaa umashada guriga lagu keeno waa inuu kastuumaysa dhakab isku siiyaa intaasoo bilooda cunto usoo karinayso bariis iyo baasti iyo adduun iyo allaysti iyo aroosti iyo aad saa iskugu soo korsaaraysa waa inaad labada isbuuc u horeeya haddaad Mareykan joogto iyo haddaad waddanka joogto waa inaad sariirta saa ugu jiftid wadan soo kicin oo everything fadhigaada lagu keeno ninka loo dhaldhalo ee la jeclaado ee gabadha hadday ku waalata xitaa aan la yaabaynin waa kaas hadduu ku dhaho sanad walba ii dhal ninka noocaas oo kale wuu istaahilaa in loo dhalo ina la ixtiraamo hadduu ku dhaho halkaa fadhiisa ha ka dhaqaaqin ina la dhaho okay hadalkaagaa jira adigaa madaxweynaha guriga ah ina la dhaho wuu istaahilaa yaa ina la boqorana wuu istaahilaa inuu toban ciyaalo wiil iyo gabdho iskugu jiro cadcad loo dhalana wuu istaahilaa not like ninka markaad walaacdid aad guriga hooyada aadaysidood no ma aha gabadha walaashayda marka taladeeda u soo noqda xamaasada way ila tagta iga raali oo baa gabadha walaashayda taladeeda marka u soo noqonayna insha Allah gabadhan abaayo waxaad sameynaysaa marka ugu horeyso waa inaad qofkan bili aadanka ah labinkan waxaad leedahay maxay tahay sababta aad ii soo xiriirin weysay markaan walaca ahaa oo dhareerka iga daadanaya ii soo raadin weysay waa qodobka koowaad maxay tahay sababta aad ii soo raadin weysay markii aan dhalay iyo markaan fulanayay maxay tahay sababta aad garabkayga u taagnaan weysay shalay markaan caafimaadka qabay oon ordayay oon cuntada ku karinayay oon guriga oonsiga baf kugu siinayay oon dhalad cadarka isku jabinayay oon ruuxleynayay waxaan ahaa xabiibti gacaliso quruxay dheemanay luulayaan ahaa markuu baybigii ilaahayba waaxidkuna dhexdeena ka abuuray oo nimco ahayd dhexdeena markuu soo galana waad igu dayacdayo waxaad tiri saaxiib baabuurka iska celi so what do you need hadda maxaad rabtaa ilaa hadda caafimaad qabayo fiyow yahay waxaad rabtaa haddana inaad ii buuxiso haddana meesha ka bilowda miya markuu ku raaligeliyo oo ilinta saas uga soo daadato aad leedahay okay jaanis kale ku siinayaa jaaniska kale markaa siisid isla markii baby hore ha ka diyaarinin babyga u koowaad wuxuu ku tusay maartay red flag waad aragtay babyga u horeeyay wuxuu kugu sameeyay kan kale marka hore ha ugu boodin naftaada time si naftaada waqti si cunugeero aad dhashaa ku soo haray sida hooyooyinka Soomaali kaliya ha isku koobin cunugiisa waa inuu ka barhaya ma aha inuu kira bixiyo ma aha inuu guri hagaajiyo siiyo ma aha inuu cunto siiyo ma aha waxaas
cunugiisa waa inuu time siiya, cunugiisa waa inuu jecel siiya, cunugiisa gaajaysan oyna hadduu arko cuntadii halkaa taal waa inuusan ku dhihin istaaga cunuga cuntada siiya, waa inuu cunuga cuntada usoo qaado la fadhiisto siiya, waa inuu cunugiisa wuxuu u baahan yahay hadduu arkaayo inuusan adiga kuu dirin oo asaga usoo qabto, waa inuu la ciyaaro, waa inuu time siiyo, waa inuu farxad siiyo waayo. fahamtid? waxaana hadda raadinaysaa ood baaraysaa kaloo hadda baaraysaa inuu istaahilo in loo sii dhalo inta kale. waxaa kaloo fiirinaysaa xiriirkii asiga cunugiisa ka dhexeeya, qaabka cunugiisa la dhaqmaayo, jacaylka ilaa cunugiisa intuu u gaarsiisan yahay, waxaasoo dhan waa fiirinaysaa. ma fahantay? kalsoonidaadana 100% ha ahaato, ha cabsanin. 100% kalsoonidaada ha ahaato, ha cabsanin. naag noolo isku filan noqo. haddaad waxbarasho haysan waxbarashadaada ku noqo, jirkaaga qurxi, iskiinkaada qurxi, jimicsigaada samee, caloosha uurka hadduu jexjeex kaasoo raacay iska hagaaji, oo maaragtay adduunkaaga iyo waqtigaada iyo saa isku kala taagtaag. okay abaay marka intaas ayaan ku leeyahay. naag nool iska dhig, make sure ina dambe tan maanta kugu dhacda inaysan kugu dhicin. kheyr iyo caafimaad idin rajeynayaa. Peace out.